okay waxay noo joogtay partigii labaad waxay noo joogtay annagoo ku dhufanay first digit ama qaybtii koowaad annagoo ku dhufanay maxsuulka noo soo baxay waxaa kaloo hore aan u sheegnay tiran waliba waxaa lagu aadiyaa godkeeda ayaa lagu aadiyaa mathalan 2 sababtoo ah tirooyinkan loo dhigay 2 ayadaa ku aadaneed godka koowaad ayaan ku toosinay kadibna maxsuulkii noo soo baxay mid kasta godkiisa ayaan waafajinay numberka 5 marka wax ku dhufanay 5 god tobanaad waa maxsuulkiisa waxaa laga bilaabaa godka tobanaad unbaa lagu toosinaya haddii 100 oo inta sii yaala maxsuulkiisa waxaa lagu toosinaya asagana 100 unbaa lagu toosinaya godka ku aadan 100 unbaa lagu toosinaya maadaama 5 uu yahay god tobanaad uu yahay wixii noo soo baxay oo maxsuulka uu soo saaro godka asaga uu ku aadan yahay lagu toosinaya ku dhufashada marka ayada saasay u kala dheer tahay ku darta iyo ka jarto kalmaan ku darta mid kasta plus value-giisa toos loogu toosay laakiin ku dhufashada way ka duwan tahay mid kasta digit-kiisa loo fiirinaya lagu aadinaya maxsuulkii uu soo saaro haddaba 5 aan 5 lagu dhufto 8 waxaa waa 40 marka zerogiisa halkaas ma ku dhigaysa because of kumaba aadanaba asaga wuxuu ku aadan godka tobanaad ku aadan intaan ka bilaaba 40 markaa fiirisid zeroda waxay noqonaysaa god koowaad 4kan wuxuu noqonayaa god tobanaad 4kan qaadanaa marka 0 aan dhiganayaa 4 aan wataa ayada laakiin sidii isu geento kale ma ahan ma kusii daraysa tirada gadaal kaga daraysa maxsuulka markuu soo baxo ayaa tirada awadatay ayaad ku dari doontaa okay 5 times 1 waa 5 maxaan hore u watay 4 aan u watay 9 ay noqonaya marka good okay aniga marka aan socono haddana waxaan leenahay 5 times 4 20 0 aan dhigan lahay 2 aan qaadan lahay laakiin tiro kale inta ku dhufto ma laha sidaa daraadeed ayaan wada dhiganayaa 20gaas marka waa kaasa hadday idlaatay markii saas ay ku dhamaato ayaa haddana waxaan sameynayaa waa isu geenayaa 6da ayadoo wax ka hooseeya ma laha soo deji 6 3 waxaa lagu daraa eber waa 3 okay 8 lagu dara 9 waa 17 aan dhigtay halaan wataa halka 0 ku dar waa 1 2gana soo deji qaybta ku dhufashada saasaan kaga baxay markaa jeegareynayna waa kana sida haddaad unbaa u jeegareynaysaa oo okay 5 2 ma buuxin karto 50 ku daa 4 1 ma buuxin karo 400 ku daa marka kuwaan oo kale waxay ku saaran yihiin 4 times 2 20 mano 3 0na gadaal kaga darso waa kana iyadoo haddana checking waxaa kaloo samayn karnaa kuwii sareeyay ayaa haddana wax ku dhufanaynaa isla inay tiradii soo laabato tiradii hore meeqayd 21736 inay soo laabato hal raba marka hore okay kuwaana sareey soomaha haddana kuwii sareeyaa hoos la keenaya waa isku meeshay 8 times 2 waa 16 1 aan wataa 8 times 5 waa 8 times 5 waa 40 1kii ku dar 41 okay 41 1 ii hartay 1kiisaan ku dirsan 1 times 2 ku aadi tobanaad waa 2 1 times 5 5 okay 4 dhiman 4 times 2 4 8 waa maan 8 4 dus ilan waa 100 4 times 5 20 okay 6ka soo deji wax lagu toosay ma lahan 1 ibla 2 isku darsama waa 3 4 plus 5 waa 9 8 ku dar 7 waxaa wadataa 1 10 ku dar 1 2gana soo deji waa isku halka checking-kana waa qaabkaas ayadana ayadoo estimation waa kana estimation marka la lahayn 1ka haddii lagu dhaha 2 ma buuxin karo 20000 saasay noqonaysaa okay marka multiplication shortcut and numeric ending in 0 shortcut marka marmar qaarkood ku dhufashada waxaa loo sameeyaa qaab shortcut ama qaab fudud loo sameeyaa oo ku dhufashada processka dheerahay ma maraysid oo waxaa maraysaa short process maraysaa laakiin short process markaa marayso marka ibra ay ku jiraan waa ibra oo kale ku jira saddex step loo maraa when zero is marka 0 are the ends of the multiplicand tirooyinka isku dhufanayo iyo tirooyinka lagu dhufanayo marka 0 ay u dham ay ku jiraan oo qaybta endiga 0 ama qaybta dhamaadka ay 0 ku jiraan oo both labadaba disregard waa la iska indatiria the zeros ibrada and multiply the numeric xisaabta caadiga la isku dhufanaya مثلا هذا في multiplicantiga markaa fiirisid 3 0 ka dambaysa multiplierka markaa fiirisid hal ibra ka dambaysa midkan waa 3 0 kan waa 1 0 markii la isku daro labada waxay noqonaysaa 4 0 ayaa ku jirta marka regard all the zeros 0 dhan iska indatir and multiply isku dhufo the multiplier and the multiplicand labadaas isku dhufo marka numberka labaad wuxuu leeyahay count the number of zeros into 0 tiri in the multiplicand and multiplier inta ku jirto 0 multiplicand waxaa ku jirta 3 0 multiplier waxaa ku jirta 1 0 markii la isku daro waa 4 zeros qodobka saddexaad wuxuu leeyahay attach the number of zeros counted in step 2 gadaal kaga dar marka
65 iyo waxaa noo soo hartay un meeshaan 65 ka soo hartay meeshaana waxaa ka soo hartay 42 65 42 okay ku dhufashada caadigan sameynaynaa marka 2 times 5 waa 20 my 0 waa 2 times 5 waa 10 0 1 wataa 2 times 6 waa 12 xabadkay ku dar waa 13 4 times 5 20 0 2 wataa 4 times 6 waa 24 2 ku dar 26 okay isku dartii samee marka 0 soo deji okay kuwa ibreberda idab 0 3 plus 0 na waa 3 1 plus 6 na waa 7 2 na soo deji afartii 0 na marka gadaal kaga dar qaabkaas fudud ayaa iyadan multiplication loo sameeyaa okay multiplying whole number by power of 10 ayaa waxaa sameynaynaa 10 ayaa waxaan ku dhufanaynaa ayadana waa shortcut weydkii ilaa weli aan daba taaganahay stepka 3 ayadana waxaa waa sida hadda le waaye 10 power 10 mar 10 ku dhufo mar 100 ku dhufo marna 1000 ku dhufo waa shortcutkii hadda waaye stebyada waa isku mid zeroyada soo xisaabso oo multiplicant iyo multiplier ku jiro kadibna all zeros gadaalka gey waa sidii le markaa okay 99 times 10 haddaa sameysid 99 ka 0 hal 0 gadaalka ga daray 9900 ilaa laba 0 wata maano laba 0 gadaalka raac 90 waa ka waa shortcutkeeda okay division of whole numbers oo qabta chapterkeena ugu dambeeyso in tirooyinka idil ayagana la soo qeybiyo waa la soo qeybinayaa inta la isku qeybin waa inaad kala bartaa ta kuwa kor la saar quotient loo yaqaan quotient kuwa la qeybinaa dividend loo yaqaan kuwa loo qeybinaa waxa loo yaqaan divisor loo yaqaan waxa noo soo baxay waxa loo yaqaan the result ma garan okay marka how many times one number divisor is contained in another number divided how many times are number divisor kan oo mathalan loo qeybiyaha asaga ku dhufasho ahaana loo fiirinaya waxaa leeyahay haddii tiro lagu dhufto intaas loo noo keenaysa intaas ma jirta asaga saasaa loo fiirinaya the number of dividendga loo fiirinaya oo haddii lagu dhufto ma keenaya saasaa loo fiirinaya the result is the quotient waxaa noo soo baxayna quotient ayaa loo yaqaana tusaale ahaan oo kaleento 115 markay tahay iyo 27 markay tahay waxaa la isku aadinayaa 27ka iyo waxaa la isku aadinayaa 15 laakiin meesha 1 hadday ahaan lahayd oo 5 aysan ku jir lahayn 2 daa loo fiirin lahaa hadday ka yaraato calaamadaa la isticmaali lahay marka maadaama 15 laba good ay tahay 27 laba good ay tahay 0 waa laga tagaa marka 15 iyo 27 ka la isku fiirinaa marka waxaan leenahay 27 iyo 15 27 27 oo loo qeybiyo 15 meeqa 27 15 ma loo qeybin karaa haddii laba loo siiyo way ka badanaysaa xisaabto meesha waxay noqon doontaa 30 ay noqon doontaa 30 27 way ka badan tahay 30 badan marka maxaan dhahnaa 1 u siinayna marka 15 27 ki 15 loo qeybiyo waa 1 ka marka waxaan ku dhufanaynaa 15 ka ku dhufanaysaa 15 kala goynta sameynaysaa marka 7 minus 5 waa 2 2 minus 1 waa 1 0 da soo dejadan hadda waxay haysaa 120 haystaa 120 hadda marka waxaa leedahay 15 haddii tiro aan ku dhufano 120 sina ma xisaabta waa kasoo gudubtay 270 waxay maraysaa 120 maraysaa 15 haddii waxaan ku dhufano waa 120 sina ma jirtaa waa 8 waa 8 marka 5 aan ku dhufano waxay noqonaysaa 40 0 4 aan wataa 8 times 1 8 2 ku dar 12 saas waa marka saasay noqonaysaa marka hadba waxa u fiirinaysaa gunaanadku waxa u fiirinaysaa tirooyinka divisorka ama tirada loo qeybiyo waxa u fiirinaysaa how many times tira haddaan ku dhufto intaan siinaysa ma jirtaa aa u fiirinaysaa ayaga tiraha awsi marka qaybta koowaad ka soo baxdeed godka hal godaa kasoo degaa qaybtii hore godaa kasoo degaa hadda qaybinta oo divisor dividend waxay noqonaysaa 120ka dividend noqonaysaa 120ka waxaa leedahay iyo 15ka u qaybinaysaa marka waxaa leedahay 15 haddaan tiro ku dhufto 120 siinaysa ma jirtaa waa 8 waa ka 120 kadib waxay noqotay 0 waad mahadsantihiin qaybta kalento ayadana shortcada ay leedahay divisionkan ayaa noogu dambeeya casharka oo dhan ayadoo shortcadna aan fiirina ayadana oo lagu saleynayo qaybtii oo ayadana powerkii lagu saleynayo 10 power ayadoo lagu saleynayo oo the ending marka loo fiiriyo steebada waa isku mid zeroyada ayadana waa mathalan waa isku soo dardaraysaa step count the number of end zero in divisorka zerogiisa soo tiri drop the same number of zeros in dividend asagana sidaas oo kalento drop the same number of zeros in dividend as the in divisor counting from the right to left
sidii aan horta multiplication kusoo saarno 95,000 iyo 10 la isku qaybina soo maa zerodan ka tag saddexda zerona ayadana ka tag waxaa leedahay 95 oo loo qaybi 1 aa leedahay waa 95 soo maan marka divisorka meesha sidaan ku cadfir drop the same number of zero of dividend in the divisor counting from the right to left ha marka waxaa la wadaa hal zero oo midka dividendga ah iyo hal zero oo divisorka la isku qayb hadba divisorka inta zero uu wato ayaa ka bixaysaa numberka oo dividendga hadda divisorkan wuxuu wataa hal zero wataa maadaama hal zero uu wato hal zero kamida zerodiisa wuxuu cunayaa zeroda oo dividendga uu cunaa zerodan la tegaysaa marka meeshan laba zero kusoo hartay 95 haddii 1 loo qaybo 95 waaye hal zerona powerkiisa cunay waxay noqonaysaa 9500 hal zero cunay hadda laba zero wataamaan laba zero way la tegay ayadana 950 haddii saddex zero is cunaya 95